hayo arday baana hayo ubaxii waddankaana hayo. bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada muuqaal kale oo aan kaga hadlayno cilmi baarista iyo cashada taxanaha noo ahaa. maanta waxaan ka hadlaynaa references iyo siday ardaydu u hagaajin karaan. hadda kama hadlayno muhiimadda uu leeyahay references iyo dhibka ay ardaydu ka maraan, laakiin waxaan ka hadlaynaa xalka ugu fiican ee ardaydu ka bilaabi karaan. sida caadiga ah referenceska waxaa jira qaab manual ah oo ardaydu gacanta ay ku qori karaan iyo in software la adeegsado. laakiin dhibka ugu weyn wuxuu ka imaadaa horta manual inaad u isticmaasho waa halis oo qaladka in aad geli karto aad ay suurtagal u tahay. tusaale ahaan haddaa hadda dhahdo article journal and reference manual u sameynaa, waxaa la rabaa inaad fahamsan tahay authorka last namekiisa. tusaale ahaan hadda ani maxamed muuse xasan waaye, last name waa xasan. okay, xasan kadib comma inaad dhahdo, first name maxamed waaye, initial ka dhig, kadib full stop, kadib bracket fur, sanadka article-ka la qoray, xeer, full stop dheh, article-ka magaciisa halkan ku qor. kadib maxaad sameynaysaa journal. journalka waa inuu ahaadaa italics. kadib comma dheh, volume-ka waa inuu ahaadaa italic. kadib issue-ga waa inuu ahaadaa caadi normal not italic. joogsi, kadib page number tusaale ahaan 25 ilaa iyo 40. saanu markaa inaad qalad samayso aad ay suurtagal u tahay. maxaa xal ah? xalkooda waxa waaye dadka arday qaar waxay isticmaalaan wordka. tusaale ahaan references ay aadaan, kadib insert citation ay dhahaan, add new source ay dhahaan, kadib meeshaan waxay ku qoraan, waxay doortaan journal miya book miya maxaa reference u sameyrtaa. tusaale ahaan journal, kadib authorka magaciisa inta gelinayaan, titleka journalka intaa lagu qoraa, kadib journalkii, sanadkii, pageski. waa sax oo wuu roon yahay, wuu ka fiican yahay hadayda manualka aan sheegnay, laakiin weli manual waay, wax walba adaa qoraysid. marka sidaas la ajligees casharkan maanta waxaan rabnaa inaan soo jeedino waxaa u fiican in la isticmaalo software. aniga shakhsiyan marka softwareka aan isticmaalo oo aan isdhahay ardaydu maanta waa fahmi karaan, waana tusi kartaa waxa waaye Mendeley. Mendeley markaad soo degsato waxa ugu horeeya oo rabo inaad sameyso waxa waaye horta inaad softwareka Mendeley oo aad soo degsatay aad wordka ku xirto. marka se ugu xiree Mendeley waa kana waa soo dejin soo maaha. waxaa sameynaysaa tooliskan inta tagto meeshaan waxaad dooranaysaa install ms word plugin. markaas wuxuu toos ugu xirmaa wordka, laakiin hadda anigu waa igu xiran yahay uma baahniba. stepkood waa taas. kadib meeshaan waa marka meesha wax walba fududeynaysa. article-ka aragtid aa furaysaa. tusaale ahaan hadda article ay furan, article-kan waxaa sameynaya marka control shift c aa qabanee, kadib waxaad tegaysaa meesha aragtid inaad referenceska ku qortid. tusaale ahaan inta control v bisaa dhehe mujeda wixii dhan waa kana waa noo imaadeen iyadoo wax walba ay iswataan. anaga wax maan qorni maya, maxaa sameynay article-kan waxaan ku furnay keliya Mendeley, control shift aan qabanay, c aan ku darnay, xaggaan tagnay, basti aan dhahnay, that's all. so aaday u fududahay. laakiin meelahan waa marka halaha yarka weaknesses ka jira Mendeleyga. meeshaan haddaa u fiirsato haddii article-ka aa furtay tusaale ahaan kan oo kale waa furnay, meeshaan journalku wuu noo buuxaa, sanadka sax waaye, volume-ka issue waa sax, laakiin pageska fiiri, pageska waa 125 ilaa iyo goorme ilaa intee ma laha mujedaa. markii saan oo kale aan marka haddaa control shift c dhaxno oo meesha date u naqano oo aan v dhaxno mujedaa page-ka qaldan. marka waa caddahay in meeshaan uu page-ka qaldan yahay 125 meeshuu ku egyahay lama sheegin. marka ciladahaasuu leeyahay Mendeley. maxaa la rabaa ardayga inuu iska fiiriyo meeshaan journalku waa sax, wixii kulli noo fiiriyo, kadib pageska uu tago. pageska hadda waa kana 125 uu ka bilaabay, intana 125 waa sax. kadib waa article-ka inuu ardayga fiiriyaa la rabaa, meesha u dambeysa uu tago, pageka waa 138 uu halkaan dhaho marka ilaa 138. now it's okay. now control shift c aan dhahno uu noqo kiyadaad iska tir control v.
mujdana hadda 125 ilaa 138 good sidaas waa sida arabka hadda marka qaabkaas laakiin waxaan sheegan hadda waxa waaye pdf-kii haysataa meeshaana soo gelisay qaladkaasa kugu dhacay waxaa arabna maanta inaan baran waxa waaye sidee horta qaladkan ku ugu hortagaynaa intuus qaladkan ka yimid qaladkan wuxuu ka yimid articlekan pdf-ka ah waxaan kasoo degsanay meelo tusaale ahaan google scholar ama meelo kale aan kasoo degsanay meeshaas database-ki maaha qalad uu ka imaan karaa marka mendeleyga qaladka software-ka sidiisu kusii qaadanaa maxaa waaye sida ugu fiican waxa waaye inaad toos mar walba aad sourcigaada ugu soo qaado database-ka that is the best practice oo la isticmaalo waaye marka qaababkaasaan maanta sharxeynaa toos haddana waxaan marka aan idin tusaa sida kowba aa u bilaabina sidee folder loo sameynaa mendeleyga kadib articleka loo soo gelinaa citationka hadda aan sheegayna qaladka looga fogaanaa okay waxaa rabnaa oo kale kasoo qaad inaan article soo degsano articlekan soo degsanayno waxaan tagaynaa maxaa waaye database-ka database-ki waxaan ku qoraynaa perception tusaalahaan hadda of online shopping title-kan inuu ka muuqda rabnaa keywordskaas kadib search aan dhahnaa okay hadda waxaa noo soo baxaysa marka natiijo little bit waxyar marka waa kana markaan perception of online shopping ku qornay intana title-kan dooranay article-aa noo soo baxay tusaale ahaan oo kale hadda article-kan kasoo qaata consumer perception of privacy and security risk for online shopping ardayda marka meeshan qalad ku weyn tagsmayaan waxay arkayaan pdf-kan isla marka waxay ku degdegaan inay pdf ka degsadaan markaasay hadhow mendeley ku furayaan qaladka meeshuu ka imaanaa marka koob intaadan pdf degsan waa inaad citationka dejisaa hadda fiir waxaan sameynaa marka magacii articlekan ku dhuftay maba aadin pdf mujeedaa waxaan toos u aadaa site markaan waxaan dhahaa export ku sameey ilaa ana mendeley waaye meesha wadna waxaan export markaan dhahno waa inaan soo degsanaa ris kan wuxuu noo sahlaa dhow inaan referenceskan toos u xareysan safe aan dhahanaa hadda waxaa noo soo degay marka failkaasaan qaadaynaa fileka aan hadda soo dejina waan soo qaadnay waxaan dhigaynaa folder aan suubsanaynaa tusaale ahaan waxaan dhahaynaa waxay ka imaadeen waxaan database okay kadib fur inta dhig hadda marka mar walba horta database wax laga soo dejiyo magacyo qaab daran ay wataan waa iska saxeynaa marka magaca waxaan kasoo koobiyeynaynaa meesha hadda waxaan aadinaa meeshaana waxaan dhahaynaa articleka magaciisa waa consumer perception of privacy and security risk kadib right click aan dhahaynaa kadibna rename aan dhahaynaa control v hadda maxaa haysanaa citation hubnaa haysanaa maxaa noo dhiman articleka pdf-kiisa waxaan u naqanaynaa meesha hadda waxaan dhahaynaa hadda noo deji pdf-keena pdf-kii furaa now pdf-ka waa furan yahay mujdaa hadda maxaan sameynaynaa marka pdf-kan aan save garaynaynaa intee ku save garaynaynaa meeshii haddayti aan geynaynaa save aan dhahaynaa markaan save ku dhahno meeshii haddayti waatana marka wuu noo soo degay magacii qaab darna wataa rename aan iska dhahaynaa kadib control v aan ku dhahaynaa now waxaan haysanaa articlekii iyo referencigiisa waxaan tagaynaa marka mendeley waxaan suubsanaynaa folder aan mendeley ku dhex suubinaynaa folder markaa ku diraysa waa ka intaa waxaa ku dhufanaysaa add folder waa kana magaca u bixinayna waxaan dhahaynaa tusaale ahaan hadda kan waa tutorial tusaale ahaan tutorial kadib enter dheh marka enter dhahdo waxaan rabnaa articlekii hadda inaan inta soo gelino u fiirsi articleka ha taaban referenceskan toos meeshan usoo qaadaynaa waan soo gelinaynaa haddaartid file adhe open ama add adhe kadib sourciga anatay oo kusoo daray laakiin waxaa ka food inaad to drag ugu sameyso hadda marka maadaama aan kusoo darnay inta u fiirsa sourcigan wuxuu nooga yimid toos database-ka marka wixiis waa noo saxan yahay marmarkii qaar waa iska suurgal laakiin reliability-ga 90% ka badan waa mar walba markaa database toos ugu soo dejiso wax walbasaanay kugu fiican yihiin hadda markaan haysana sourciga waxaa suurgal inaa dhahdid source waa haystaa laakiin pdf ma leh pdf-ka waa haysanaa laakiin ma isku dhegno attach kuma attach aan ku sameynaynaa waxaan sameynaynaa meeshaan fileskan tagaynaa add file aan dhahaynaa meesha data noo geey marka tutorial database consumer mujada articleka waa ka deji now we attached
hadda marka maadaama ku attach gareyn waa kana muxuu wataa pdf calaamadiisa waa furi karnaa fur okay articlekan waa haysanaa anagoon ka balbalaynin wax citation ah control shift c aa dhehe si hadhow markaa rabtid inaa qaadid toosa inta u tageynaa kan naga tir control v hadda marka maxaa qaldan wax ma qaldan journalka magaciisa taariga waa pages waxna waa nasaxsan yihiin that is one way ninkan marka authorka maadaama Miyazaki la hadda marka waxaa sameyn kartaa wax kale oo ah markaa wax qoraysid waxaa rabtaa tusaale ahaan now going to side browser authorka rabtaa inaa side galis waxaa lahayaa Miyazaki waxaan leeyahay referenceska aad qaybtan Mendeleyga tag insert citation kadib meesha magaciisa bilaabo Miyazaki sir mujida kaliya ku dhahe okay now we have Miyazaki and Fernandez 2011 asaas sida noo subi kan maxaa waaye waxaa loo yaqaanaa in-text citation adoo wax qoraa daartin article-kii side galis qaabkan u side galinay hadhow marka haddii 20 article asaan u side galis oo in-text citation sameys hal mar waxaa dhahay referenceska insert bibliography kadib wasaa kuu sameynayo mudada saacadaan ku celiya hal mar waxaan rabaa aniga inaan articleska aan hadda soo side gariyay inaan inta isku wada keeno markaas aan dhahay insert bibliography waa kana hadduu 20 xab ahay 20 inta kugu soo taxaa marka that's one quick way loo sameeyo waayo marmarka qaar marka hadda u fiirso marmarka qaar waxaa dhici karto articleka aad soo degsatid inuu waxyaabo qaar ka qaldan yahay hadda kan wixiisna waa noo saxsanaa tusaale ahaan mid kale soo degsanaynaa back dheh okay go back markaa samey okay midaan soo dejinaynaa tusaale ahaan kan oo kale noo soo deji kili ku dheh markaa kili ku dhahdo maxaa step ku hore aan subinayn waa inaan site dhahnaa markaa site dhahno maxaan dhehnaa waa inaan export dhahnaa waa la soctimaho kadib waa inaan direct aan sameynaa hadda marka wixii noo soo degay aan tageynaa aan soo qaadaynaa waxaan geenaynaa folderkii aan hadda hoosh ku wadnay laakiin maxaan dhahnay magac qaab darno mar walba wataa ee magaca u noqo waxaa sameysaa copy magac inta dhexdeed kii hore u noqo oo referenceska ahaa name dheh magacana cusub geli hadda maadaama aan soo dejino citationkii waxaan tagaynaa pdf inuu deji that's the second step pdf waa kana maxaan sameynaynaa sina waan dejinaynaa wax yar little bit qadka adag intuu kacay lami bowsi hada okay wuuna soo kacay waxaan sameynaynaa save aan dhehenaa inta gelinaynaa meesha geli okay save waan ku save garaynay hadda marka meesha u noqonay waa kana magacii la qaab daran marba xasuusna magacyadaas ku qaldin kan uu ahaa maho copy dheh inta tag magaca ka bedel step ku xigta maxaa waaye waxaan tagaynaa Mendeley waxaan dhehnaa library noo celi gaar ahaan waxaan xaqiijinaynaa folderkan ku jiro inuu keeni yahay folderka markaan ku jirno waxaan sameynaynaa kanaan drag ku sameynaynaa markaad drag ku sameysid maxaa haysanaa hadda reference haysanaa laakiin maxaa maqan articleka soo lagu soo dejinaa we need to attach inta tagnaa files kadib waxaan dhehnaa add file kadib waa kana kan waaye soo maaha waa open now waxaan sugaynaa intayn calaamadda pdf ka soo baxdo okay waa haysanaa pdf hadda aan furno marka meeshan markaa fiirsid qalad maa jiro journalku waa sax sanadku waa sax volume issue page number waa sax hal waxaa qaldan halka wax qaldan maxaa waaye waa title waa capital kulli title ahna aba style maaha marka waa inaad qaladkaas yarka iska saxdaa mar walba marka adiga ha ku tiirsanaan software wax uu ku fududeyn karaa software laakiin mar walba laguma tiirsanaado markaan kale waa inaan bedelnaa si fudud haddaad inoo bedeshid control shift c dheh kadib waxaa aadaa wordka inta basta ku dheh waxaa tagaynaa marka homeka kadib waxaan dhahaynaa qaybtan waxaan tagaynaa change caseka hadda tusaale markaa click siisid waxaan dhahaynaa sentence ka dhig
sentence because API ga sentence ahaan waa inuu title ahaadaa hadda marka waa kana wuu noo bedelay hal mar qaad meesha u noqo control shift v ku dheh hal mar waa bedelnay soo maaha hadda waxaan dhehnaa marka control haye shift c hadhow markaan citation sameynayn maxaan dhehnaa control v mujida titlekeen waxaan mana tusno it's simple that is one good way waa ogahay speedkayga aad u sareeyay oo haddaa rabtid waa iska gaabi kartaa inta tagtid youtube-ka gaabi playbacka kadibna codkaygu wuxuu noqon doonaa sidan okay marka qaababkaasa ugu fiican inaad samaysid references hadda marka control shift v si loo isticmaala barane control shift v ma iska dhaafi kartaa haa se iskaga dhaafee number 1 waa inaa folder samaysataa number 2 waa inaa articleska dhan isku xirtaa iyo referenceskooda sida hadda raacdaa kadib markaa kulli haystid author walba aa hadhow site ku samaynaysid author 1 tusaale ahaan iyano ah Lee tusaale ahaan asan waxaan dhehnaa marka tusaale ahaan fiiriya insert citation Lee enter waa site gareen author 2 hadii waxaa iska qornay author u saad gareynay authorkan kale yuu ahaa magiis wuxuu ahaa Miyazaki okay hadhow marka hal mar waxaad documentiyada dhamaysatid adiga iskreeb kuwaan asaga ku dhamaystiraa we don't need inaan qorno marka hal mar dhamaysatid maxaa dhehe marka page cusub e4 referenceskayga hal mar soo wada geli hadda labaan soo isticmaalno waa labadii wana soo geliyo waa kay mujida hadday 100 ahna 100 saasoo nagu soo geli lahaa marka that is the best way oo loo isticmaalo Mendeley oona the best practice haddaa hab hanaankan raacid qalad ma ka dhacayo referenceska waa ogahay ardaydu dhan ma wada heli karaan database oo ay article kasoo degsadaan ilaa lacag u baahan yahay ama subscription laakiin ardayda badankooda PDF ay soo degsan karaan Google Scholar ayagoo isticmaalaya ama internetka caadiga search engine-ka caadiga haddii hataa sidaas ay tahay waxaa laga rabaa labada had process ma combine garay kartidoo inta citation soo dejisid article PDF-kana attachment ku sameyn kartid ilaan access uma haysatid database haddii arrintaas dhibkaas uu ku haysto waxaa la rabaa PDF soo degso dhib ma laha laakiin mar walba waxaa jeegaraysaa meeshaan informationka inuu dhammaystiran yahay adoo kasoo bilaaba titleka inuu capital letter yahay mujida hadda issue ka maqan issue raadinaysa oo dhammaystiray kanoo kale journalka oo maqan volume issue wax ma leh kaliya sanadka iyo pages waa u dhammaystiray marka qaabkaas aa rabaa haddii laakiin aad tahay qof database access u leh processka raac citation koo soo deji PDF ka soo deji attach isku samee kadib akhrisku bilaaw Mendeley note taking iyo stick notes kuloo ku samey kartaa marka I hope cashirkaas maanta intaas ku ekeenayna inuu idin caawiyin waa rajeynaa waxaan soo wadnaa casharada kale sida academic article loo aqriyo sidii loo sameeyo literature review loo qoro SPSS aan ku xijinaynaa oo analysiska dhammaan aan dulmareynaa dhammaan waxaan ka tageen marka waxaan rajeynaynaa ardayda ku xiraadaan channelka haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkan muuqaal ka daawato waxaan kaa codsanayaa inaad riixdo subscribe si aad qayb ugu noqoto bulshada aan halkan ku dhisayno haddiise aad doonayso in fariim ahaan aad u hesho had iyo jeer wixii aan ku soo kordhino channelkan waxaad riixi kartaa sumad u eg gambaleelka ee ku taala dhanka midig ee subscribe mahadsanid